soomaalida statisticskeeda markaan eego waxa ugu badan ninka milyan iyo dheeraad gaadhay wuxuu ka warramaa kubadda cagta. Manchester baa badisay, shalayna liigii halkaasaa badiyey ka ku xiga waliba kinyukaas idinla jooga ka ku xiga bahalkiisa ugu badani waa heesuna 900 kun iyo dheeraad bay marayaan. waxaan eegay cid webpage loo wadaado bal ugu dhowaada diin wax sheega oo webpage isagu leh wadaadada inta badani ma laha. sheekh dirir baan eego 300 iyo waxoogaa 400 wax dhiban buu leeyahay. waxaan uga dan leeyahay webpageskeena ama waxeena ugu tirada badan leh haddii ama shay taafiha buu ka warramaya kubadiya wax la nooca ama macsibu ka warramaya hees iyo wax la nooca wixii inta ka soo hadha kuwa ugu caansan baan eegay waa kuwa reeraha isku dira. reer hebel maanta tuban laga dilay, reer hebel baa cayn ku dhacday, reer hebel baa cayn ku dhacay, waa kuwa noocaasi ah kuwa iyaga ugu caansan. nin nimanka social media ka shaqeeyo cadaana ayaa nin sheekho wadaadii wuxuu igu yidhi oo ay company isugu yimaadaan shaqo ayaan idhi buu yidhi war annaga kaayaga horta ma eegtay kaayaga maxaa ku jira. markaas wuxuu igu yidhi laakiin anu soomaalida bahladooda maan eegin, social media maan eegin, laakiin haddaad 2 cashay siisa buu yidhi waan kuu keeni karaa soomaalida social mediaheeda. 2 casho iga maqnaa buu yidhi. deetana wuu igu soo noqday wuxuu yidhi idinka waxa idinku badan dadka madaxa ka xanuunsanaya. wanin xaalto oo aan Soomaali ahayn oo Soomaali aqoonin laakiin markuu translate gareeyo baadhay waa nin cilmiga aqoontan leh wuxuu yidhi waxaad daawataan waxay u badan yihiin dad aad moodayn wax u dhiman yihiin. TikTok baa furaysaa buu leeyahay gabadh qaawan oo sii socoto soo waxna sheegi maysa buu yidhi way sii soconaysaa soo soconaysaa marka ma qof waa la miyaanay ahayn buu leeyahay ilaa waxna kuma sheegin intay marada dhigato bay sii socotaa soo socotaa buu leeyahay waxna kama hadlayso. marka xataa umamka kale markay eegaan waxay u soo baxaysaa tan